wadada mara ma jirto wadadaas la mari jiray carabiyo marayso oo maarad ila la fay aal aadaysa muddo hore laga gooyo oo la maarad wax mara la waay nabadgelyo la'aan darteed waa laga guuray wadada kala hadana lagu daray oo raamo maraysi ayaa lagu daray ilaa Nairobi socotay ayadana dhibka ka dhacay waa dogeedeen waa laga sii guuray tii mooyaala aadaysa hadana la dhaxdagay dhibka ka jiri waa dogeedeen nolol ma jirin marka wax nolol oo caadi ah ma jirin waxa soo dhamaalo ay ku imaadeen ay ku dhacayeen dambi anaka aan galnay iyo ma garanaysaa xumaan anaka aan ku jirno iyo macsiyo anaka aan ku jirno haday saas ahaan lahayn ilaahay waxa nagu masaladeen oo dhibe nabadgelyo la'aanta ilaahay nagu masaladeen sooma anagoo tii ku jirnay hadana waxa ay maad ciidama kuwaas duurka ay ka ugaaranayeen oo ka qaraabanayeen magaalada dhamaal maanta khudbada masaajidada dhamaal arintaas looga hadlayaa in badan dawladeena Kenya oo dawlad nabadgelyo ah nabad aad iyo aad u jeclaad Soomaaliya waqtiga ay burburtay aad garanaysaan ilaa 30 sano taqriiban laga joogo ee maanta dhaxdooda ma garanaysaa dadka masaakiinta ah iyo dadka qaxootiga ay soo dhaweysay oo waxa aragti la sameysay ayaa hadda markii dawlad ay wadanka ay ka dhalatay Soomaali oo wax ay ka jiraan wax dawlad waag laga sameeyay ayaa haddana marka laga weerarayaa wadanka Kenya dhaxdiisa laga weerarayaa wadanka Soomaali arintaasna waa arin nasiib xumo waay dawladeena nabadgelyada jecel waxaan leenahay oo ugu baaqaynaa anaka dadka hadda maanta way qaxeen waa la qaxay maanta ilaa shali waa la qaxay waa la guuri magaalada waa laga guuri waxa loo guuri ilaa taagaaba baanisa alwaaqa iyo ma garanaysaa raamo iyo dhinaca Itoobiya waa loo gudbay dad badan oo gudbeen arintaas dadka amakan masaakiin oo waqtigan jooga xaaladan jooga guriyooda ku noolaana la ayko iska jooga oo gaaja iyo haraad iyo oon iyo dhibaato ay ku haysatay laakiin ilaahay iskaga aqoonsanay oo ma garanaysaa sida shimbirihi subaxda intay dareeraan banaan ku baxaan ayko maaragtay waxay afkooda geliyaan inay wataan laga yaabo ama ay wadan iska soo hooyanay cid wax siinaysa aan jirin haday maanta qaxeen oo baabuur la fuulay oo ma garanaysaa gaariyaal la rartay iyo bixinay qarashkaas iyo ma garanaysaa culayskaas yaa bixinay dadka ay kor tagaan soo dhibaato kale uma keenayaan soo caafimaadka laftiisa iyo dhibaato kuma imaanaysa soo dadkaas meel banaan intay degaan ama guriyihii musqulihi iyo adduunkii soo dhibaato kama imaanaysa arintaas waxaan leenahay dawladeena Kenya waxaan ugu baaqaynaa ninkan la dhahay ma garanaysaa Cabdirashiid Janan la dhahay iyo ninka saaxiibkiisa oo la jiro asagana la dhahay ina siid hebel la dhahay oo labadooda ilaahay ka furteen oo been u bareereen hergalcad beenta akhrinayaan oo dhahayaan meeshan ka dagaalamayno joogno waxa waaye xuduudka Soomaali dhinaca Soomaaliya joogna dhahayaan oo warbaahintu sheegayaan oo ilaahay aan ugu baqaynin oo beenta cad hergalcad joogta sheegayaan war waxay degan bool Carabi waa loo geeyay meeshay degan yihiin mar horena BB1 ay deganayaan ka soko maalin dhow dagaalka kadib way soo guureen waxay soo degan bool Carabi soo degan masaajidka qaarkood inay ku jiraan laga yaabaa ciidankiisa iyo askartiisa ku jiro hadaa rabtaan laakiin nimanka madaxdiina hooydan dhuminayo beenta idin sheegay oo kadaa'ibka akhrinay oo ilaahay aan ka cabsanaynin ha ku daba halaagsamina ay idin dhuminin raggaas dhalinyarada oo Soomaalida oo ay khaldayaan oo walaalaha waxaan leenahay nimankaas iskaga taga ay idin halaagin guriyihiin ninka celinahay mar ay cidiina aada hubkana iska dhiibay hatta Kenya u dhiibay hubkaada haysataan iska dhiibay ayaan leenahay ugu baaqaynaa maxaa yeelay wadanka Soomaali iyo Kenya toona maanta meel dagaal u baahan iyo dib u baahan iyo rafaad u baahan ma jirto dib waa laga soo dhargay nabadgelyo la'aan waa laga soo dhargay xanuun iyo ma garanaysaa baaba iyo dhaawac iyo cuuryaannimo waa laga soo dhargay qaxootinimo iyo salac waa laga soo dhargay maanta in hadana ma garanaysaa anakana nala barakicay meeshii lagu soo qaxi jiray oo lagu badbaadi jiray dadka deganaayeen in la barakiciyo la qaxay meel ay aadayaan aan jirin arintaas waa nasiib xumo waxaan leenahay ilaahay subhanahu wa ta'ala nabadgelyo ha nasiib nimankaas u soo dhigteen inay waqtigan haddana kaaga daran waa ashhurul hurum waa bish xurmada lahayd waa bilaha ilaahay subhanahu wa ta'ala uu dhahay inna iddata ash-shuhuri 'inda allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha 4 hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa ruuhay ilaahay agtiisa bilaha waxay ka yihiin 12 bilood ayay ka yihiin tirada bilaha إلهي أكتي سبحانه وتعالى أي إلهي ليه منها 4 حرم أفر بلود أو حتى مركي النبي محمد أنت اللي سوى بحين كور صلى الله عليه وسلم عرفت قال هذا إهد أو مشركين إهد حتى يدقال غادي جرنا جري أو إذا هيا وبلي إلهي أزقار هان أزو حرمة شرفت لهاي قيمة لهاي
lama dagaalami kara dib ma la geysan kara lama caaytami kara lisma diri kara ay dhahayeen war dadka ayaga ahay oo gaalada ahaayaba saas dhihi jireen anagoo maanta muslimiin oo la ilaaha illa allah dhahayn oo inaan tukanayna laga yaabo qaarkood culimo ay ahaayeen laakiin culimo kitaab xoor maxay tartay علماء كتاب حور محي ترتي كتاب كحورتي أو ما قال ديك إسلام داديني محي ترتي ورديك إسلام كيان لدادينين أو ديك بني آدم كان حق در لو دادينين أو إلهي هاللوجة بقى أو دولة كيان وحلنا هاي دتكاس جودها هاي نكجرو هنجا صارت ودن كسومالي وواسع مال بدنا أول بلوج دجال مجري مال لوج دجال لمن واقعا نك دجال روا أو دجال الرصاص يهوب شفوا هاي ayrko haata meel weyn oo laga gali karo meel badan oo laga gali kara jirtay ha ka gala nimanka la dagaalamaayna meesha ay joogan waa yaqaanaha ugu taga laakiin mandheera dhaxdeed in laga dagaalamo ma ogolaanayna waa diidnay mana ogolin raalina kuma noqonayna waana ma garanaysaa mar walba saasaan ugu qaylinayna oo u diidayna ilaahayna waa maqlaaya subhanahu wa ta'ala waxaan leenahay ugu dambeyn waxaan leeyahay ilaahay subhanahu wa ta'ala ninkaas janan leeyahay oo fidnada wada ilaahay anaga qabto ilaahu islaamka ka qabo إله شرتيز قوا إله شرتيز قوا اللهم اكفنا شره إله شرتيز نجا كافي إله يودك كاس ولا قوا إله نجا جوجي إله ذكر مساكين تأوز مارت حبابنا إله كسر دبرت إله واسجنا واحد متيس إله كو أبا المري إله واحد متيس الدنيا آخر كو أبا المري أسج يكون لجرامبا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا